السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. شنو هذا؟ وبالقلب وناكسن أما ظهر وناكسن بريها معلن ما سوق قلين أنا واحد مدة شو يقول أنه عقلويان وإسكاه هم بين كترنا لكن ما إذا كان معلن بيجي تمام في الأيام صحيح. وبرنامج كان إسكارسية waxyaabo badan ma ka hadlaya maanta magaranaysa clipkan hadii la raahdo marka dhamaantiin soo gaarsiya waxa aan runtii oo kale iyada lafteeda aan hilmaamin rabaa inaan ka hadlo laba dumar oo dhagax isla dhacaya oo iyada social media la soo dhigay oo mar dhowtaan arkay marka fadlan si gudbi muuqaalkan oo si share garay asxaabta kale la sii wadaag muuqaalkan waa ka hadli doona labada dumar waxay isku dilayaan labada dumarka waxaad soconaysaa marka qaar caqli ma laha baad soconaysaa nin bay isku dilayaan mid baa dhagax lala dhacayaa sida dameerka loo garaayo sida dameerka aad baan ugu xumahay anigu runtii inay dumar Soomaaliyeed isku dilaan rag isku dilaan isagoo ninkaasba hadduu doonaan ogeynba oo magaranaysaa dhibaatadeeda aan ogeyn qodobkan waa ka hadli doonaa marka si wada gudbiya oo faafiya barnaamijkan muuqaalkan si faafiya way hawanigan haya okay هلا شرقريو دمرو ما حاسكو دليسان دمرو عقلي ما يهمني عقلي ما يهمني اسكو ديسان ما حد حيس ودعيسان adiga waxa weeye ninku hadaan u day ku jeclayn maxaad gabadha u dilaysaa dhagax wala dhacaysaa waa dambi weyn weeyaan waa qalad weeyaan waxa weeye wax ceeb idinku haween ceeb bay ku tahay dumar hadaatiin clipka ma shidayo doono horta waxaan ka hadli doonaa guud ahaan dagaalka social media ka socda iyo ku adkeyn doona qodobkaasna waan ka hadli doonaa muuqaalkan hadduu kusoo gaadho si iga sii shargalay oo si guddi oo dhig page-ka iyo meelaha kala gee dumarkan waxa weeye waan ka taxsiyeynaynaa ay dumar Soomaaliyeed dhagax isla dhacaan waana wax ma garanaysaay runtii laga xumaado weeyaan fiidiyogaasna baraha bulshada ayuu haystaa iminka meel walba waa gaadhay dumarkaas hadday qurbaha joogi lahayn qurbaha ma joogaan ma filayaa maanta de xabsi bay ku jiri leeyahay gabadha waxa sameynaysa dhagax wala dhacaysa inkastoo aan garanay deegaanka ka soo jeediyo meesha ka soo jeedo ii soo qora fadlan meesha ay arrintan ka dhacday soo qora xog badan kama hayo ii soo qora meesha waxa arrintaas ka dhacday waan soo qortaan sina oo sheegaray way qodobkaas waan dul istaagi doonaa waa nin xun dartiis waa kay waxaad soo qoraysaa nin xun dartiis weey geeyo saasay soo qoraysaa ninka xun maxaa isku dilaysaa marka adiga ka sii xun Soomaa adiga gabadha dhagax la dhacay maxaad la dhacaysaa ya rag badan baa imika ma garanaysaa meelaha kale dumarku inay isku kala dilaan waa wax wanaagsan bay qaar leeyahay soo qoriyay maanta rag qaar waxay taagan yihiin dumarka Soomaaliyeed inay isku kala dilaan waa wax fiican annaga sharaf noo tahay dumarku hay isdilaan rag ma garanaysaa hal la qaali gareeyo qof ibn aadan adigoo kale aad isku dilaysaa dumarka iyo raggu horta diiniyan ma garanaysaa xagga مكتي وحاس مسنا والرجال قوامون على النساء سيد الله سبحانه وتعالى آيات القرآن كاكو شيء قوامة يهجانك رجع اسكالي تاثر توا تاسوين لكن قبله دين الإسلام كحقوق بهم بسيسي ما حي نقدر قبل كله يقول لسه يا خلي بس كويسة تامية ماشي مرة لا ما كان عليه دمروا بل يسوي شبابه سوي حجران يسوع شيء سوي حجران ومحي ماشان رجلانتو كدعday wehelkii ya bal meesha ay soo xiriirsiin meesha la isku dilay aniga lafteeda la isku dilaan rabaay bal ila soo socodsiye meesha nacala shida ku yaala ila soo Puntland bal soo hormada Puntland mun soo qoriyay nimba wuxuu soo qoriyay meeshaas Mawlido waa Puntland la isku dilay ragga meesha si degdeg aan u gaari doona hadii la yiraahdo si degdeg aan u gaari doona anna waxaan rabaa inay laba isbashaaqiso isdishaan rabaa meesha si degdeg ah waa in la soo sheegaa rag badan oo suuq la'aan haysana waxaan leeyahay meesha taga la isku dilayo ragga meelaha ragga la isku dilayo oo masayr dadkan baa soo qoray meesha ragga la isku dilayo hal la gaaro si degdeg ah loo gaaro muuqaalka si shaqaray soo gudbiya okay meeshaas waxa weeye waa Puntland baa la soo qorayaa hadaanay deninkaas oo aan qaldanayn bal ku soo celiya meesha soo qora meesha Puntland baa wariya ilaahi qaran Puntland waa dhul barakaysan meesha rag la isku dilay waa meedanaga bariyaha waa aragnay rag la isku dilo rag la cayriyo bustaha dibadda loo dhigan baan aragnay qurbo horta waa noocaas qurbahan laba dooro nin isku dilay markiis ninka waxa weeye iska badaa in la isku dilay
bacdiisa banaanka la geeyaa hadduu hadlaba ma fahanteen markaa meeshaas waa meel baraka ka socota weyn baraka ka socota wanaag baa ka socda waa qodobka wala soo noqon doonaa arrimaha social media ka socda aan ka hadli doonaa iyo dagaalka anigu runtii dagaalka ilaa hadda waan ku jiraa laakiin dagaalkii aan magaranaysa la galnay team la yidhahdo habiqleyso oo magaranaysa baraha bulshada ku jira anigu mawliid wali dagaalkii kama harin dagaalkana anigu in Facebook la isu soo fadhiisto meeshan la iska caayo oo sidan baatay soo dumarka maanta dhan la isu gurama aqaano dagaalkii anigu taatikadii waan bedelay waxa weeye gacan ka hadal bay noqonaysaa gacantaas la isla dhacaya feer baa la isla dhacaya waa la joojiyey in qol laga soo qayliyo waa la joojiyey qol loo baahnaa waxba iska celinaysaa soo ma nin baatay soo ma sukankeen waxba qolha ka soo qaylino magaranaysaa ka soo cadaadin qabiil iyo waxaas meesha keenini dad baa is haystee dadka is haysta way is helayaan hay soo imaadaan ha loo goleeyo magaranaysaa ummadda Soomaaliyeed TV-yada ha kala socdaan sidaas markaa wala isdeynay laakiin inta qol qof walba ka soo hadlayo uu ku xidhan yahay oo qol hoosta uu ka soo xidhay uu ka soo qaylinayo waxaas dagaal waxa uu ma aqaan dagaal anu ma aqaano ma walba ceer la meereysataan oo nin baa cayn kala iyo waxa dacwado wareejisan dagaalkii waa awra si wada shargaray gaarsiye habiqleysa gaarsiye oo awra ku meereysanaysa habiqleysay hadda ragtiin magaalada aad joogtaa waan naqaana waan imanaynaa halay helo marka meesha markaan nimaadno guriga hoosta ka soo xirnaa wallahi rag badan guriga ka soo xirnaa hoosta ka soo xirnaa waan ogahay haddii la soo istaago inay magaranaysa naxdin dhimanayaan guriga ayuu qofku libaax ku yahay uu ka soo hadli karaa uu ka soo hanjabi karaa bacbacda iyo caynka ay arka in maqla ay ku oran karaa laakiin haddii la isu imaado waxaasoo dhan meesha way ka baxayaan qof walbana lifekiisa ayuu shidanayaa ummadda Soomaaliyeedna lifekiisa la soconaysa marka ninkii roon baa reerka u haraya maxay u haraya taas waa taas marka dumarkan iyo carruurtan la isku dhaxaysto waxaan leeyahay la isku middilaad Yurub la isku daa qof baa wuxuu soo qorayaa Yurub la isku midilo Yurub qofku hadduu daro ku soo doonto waad iska celinaysaa Yurub gacmaha kaaba xidhin Yurub la isku midila kullad maalin walba Paris baa la isku daa maalin walba wadanka Faransiiska la isku daa somad garan Jarmalka la isku daa wadan walba la isku dilaa la isku midilay waxa weey waa sheeko ma fahamtay wala isku dilaa waxa weeye sharcigu qaanuunkuna ma garanaysaa xuquuqdaada ma ilaalinayo hadda dadka rawaad la doonato dilkuna uu ka dhacaa Yurub baad sheegtay Mareykanku ka dhacaa marka waxa weeye waxaan leeyahay waxba ma garanaysaa la riboodaya iyo Facebook baa la xiraya dagaalku uu ka sii xumaan doonaa dagaalkana bishan inta ka hadhay waa soconaya waanu sii xumaan doonaa waxaan u geli doonaa guri walba u geli doonaa war si fiican ma maqlaysaa hello suga si wanaagsan ma maqlaysaa adeer real ya share garay barnaamijka ma garateen marka waxa weeye inagu hadda intan dadka meeshan ku jira team birta culus ha sii wada share garaya teamkayga ha share garaya barnaamijkan group ma caawan furaya haddii la yiraahdo group WhatsApp group ay furanay waxbay ka bedelnay sheekadii hore waxaan rabaa in uu groupkaas gaaro 12,000 ama 30,000 waa inuu gaaro galabta groupkaasna mar dhow aan soo dhigi doonaa WhatsApp group weeyaan iyo waxa weeye group kale oo isaguna maasan jira groupkaasayna magaranaysa ka dagaal gali doonaa halkaas ayaa wararka kala soconaysaan dagaalkana waxa weeye bisha inta ka dhawaa soconaya meel uu ku dhamaanayna cid maanta garanaysa ma jirto waa dagaal bilaabmay sidaas uu magaranaysaa okay dagaalkaas oo soconaya waxaan leeyahay waa inaad barataan inaad isu timaadaan oo group samaysataan oo ciddii aad rabtaan hawada ka saartaan arrintaa waa inaad barataan sababta mushkiladda haysato waxa weeye daarad marka laga hadlayo inkastoo dagaalka anuguna aan kula jirno daarood iyagii baa is haystaa mid waxaa kusoo wacaya dhulbahanto oo majeerteen ku dhegan oo majeerteen wax ka sheegaya arkaysaa mid kale warsan geliyo haddana kule majeerteen annaga inaga adeegayno marka waxa weeye
dagaalkan haddii sidaa loo kala qaybsan yahay waa lagu jabayaa. marka waxaan leeyahay ha la isugu imaado, ha la joojiyo qaybsankan iyo magaranaysa ay inay idinku kala qaybsaan oo reerba ay yidhaahdaan reer kale ma arki karno iyo reer kale waxa weeye iyagu waxay iska celiyaan iyo waxaas maaha. dagaalkaas waa loo midaysan yahay, dagaalkaasuna wuu soconaya, dagaalkaasuna dagaalka ugu culus buu noqonaya baraha bulshada ee copyrightka la isku adeegsado. markaas meesha ku dhamaadana waan garan doonaa, waan arki doonaa. numberka waa iga soo wacaysan, hala sheer garay barnaamijka intaanan dagaalkaas dadku waxa weeye soo wacayaan kaadi waad ka qabanayaan ma fahanteen. marka waxa weeye horta YouTube la iska riboodo, la iska xidho shirkadda YouTube-ku qofkaas marka ay baadho haddii dembi ku weydo way soo daynaysaa ma garanaysaa ay YouTube-kiisa qofka way soo daynaysaa. qofkii waxa laga xidhay marka kadib laga daba tago waa la soo daynayaa. laakiin dagaalku ma noqon doono mid miidiyaho qura ku kooban, waayo waxa weeye meeshii in la isdilaa imanaysa. soomaalidana waa taqaanaa qabiil bay nahay, reeraha qaarna hore bay isu leen jireenoo waa reeradee u dagaal ka dhexeeya weeyaan. marka waxa weeye meeshan baa la iskaga booteynayaa. haddii reer ka adag yahay soomaaliya la wada joogaaye labada reer way is agdegayiin. hadday run tahay oo ay dagaalamayaan halkaasaa lagu dagaalami lahaa, soomaaliya lagu dagaalami lahaa. laakiin barrac iyo dhacdhac baa lala soo doontaa iyo social media iyo halkan baan anigu waxaan ka ahay iyo halkaasaan wax ka samaynaya oo waxa halkan lagu waalay weeyaan. waxaana dagaalkaasuna uu soconayaa, dagaalka media ka socda. waay horta qodob baan rabaa inaan ka hadlo intaan dagaalka media ka hor kale waan idin furayaa. whatsappka numberkayga waa haysan ma filaya soo ma sii sheer garay barnaamijka. waxaan rabaa maadaama dad badan oo reer Somaliland ay barnaamijka daawanayaan bal inaan wax ka idhaahdo. dhowr jeerna waa layla soo hadlay, mawlidi waxa lagu yiri bal waxaad wax ka soo tiraabaa lagu yiri raalahaada barnaamijka waan galeynaa. ciidanka dabayste ama ciidanka magaranaysa ay daayeerka waan ka hadli doonaa. laakiin waxaan rabaa inaan hal qodob ka idhaahdo arrinta Burco ka taagan. Burco maayer waxa ka ahaa 10kii sano ugu dambeeyay beesha habar jecel la yiraahdo ayaa maayer ka ahayd magaalada Burco. maantana labada xisbi ayaa midoobay, way isu tageen. waxa la doortay maayer ka soo jeeda beesha Garxags. maayerkaasna waxaa doortay xisbiga ucud ayaa maayerkaana doortay. qolooyin badan oo habar jeclaa sida maayer muraad iyo rag badan oo hadlayna waxa hadalladooda ka muuqatay inay yiraahdeen nimanka maayerna sii waayey magaranaysa wax kale lama siinayaan ee way nagu guurayaan yaan cod magaranaysa hadhow la siinin. marka sheeko noocaasa socota. waxa kale oo hadashay gabadh la Hinda Gaani oo iyaduna tiri magaranaysa maayerkaas waxa weeye Burco la nasiib ahayd. marka reerkii habar jecel waxaad moodaa inay u dudayaan maayer bay u dudayaan. waxaanay runtii sheegeen in xisbiga wadani uu magaranaysa heshiis la galay oo uu yiri waxaan siinayaa maayerka magaalada Burco. heshiiskaas ay sheegayaan Cabdiraxmaan Carra la galay si ay ugu sheegayaan. laakiin arrin kale meesha timid oo xisbiga wadani maayerka magaalada Hargeysa ayuu qaatay oo Cabdikariin Axmed Moogaa. xisbiga ucudna maayerkii Burco isaga qaatay. marka xisbiga ucud ninku doono ka dhigaya ama habar jecel ka dhigaya ama habriis buu ka dhigaya ama cid doono ka dhigaya. marka Faysal baad isagoo soo doortay ninkaas oo yiri wiilkaas noqonaya. reerka waxaad moodaa yariyo weyn media ku jiraan waxay leeyihiin waa in magaranaysa qalad baa lagu sameeyay. magaranaysa waxa weeye in maayer kala nasiib ahayd. maayerkan in badan baa reeyal haysateen. dawladii hore madaxweynaha kula haydeen Siiriya madaxweynaha ilaa 5 wasiir ilaa 6 wasiir oo dhicin baa la haydeen. maanta siyaasadii waxa weeye waa lagu guuleystay. labada xisbina qabiil maaha, labada xisbi wadani iyo qabiil maaha. Garxagsina iskama laha. waxa weeye Garxags wuxuu qura uu soo sheegan karaa wax xildhibaanada uu soo saartay 25 ee baarlamaanka u fadhiya. laakiin labada xisbi in xaashiba iska sharaxi kara, ucud la siin karaa, wadani baa la siin karaa, xirsiga wadani magaranaysa la siin karaa. marka habar loofay iimaanku maayer buu ka raacay. war hadduu cir horta anigu hal arrin waan diidanay oo yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay uufu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula.
cabdiraxmaan cirro hadduu ballan idinla galay habar jecloy hadduu cabdiraxmaan cirro ballan idinla galay ballanta cabdiraxmaan cirro inuu fuliyo ayay ahayd laakiin goorma ayuu cabdiraxmaan cirro fulinaya cabdiraxmaan cirro goorma ayuu ballanta fulinaya barnaamijka shaargareya waan soo geli doonaa qaybta dambe qodanaha waan kaga sheekeyn doonaa qoladan xaggan dambe media hayste waxa weeye cabdiraxmaan cirro iyo faysal horta niyo arrin baan idiin sheegaya horta labadan oday waxa weeye waa laba oday oo dhukuran oo siyaasadda aad bay u yaqaanaa siyaasad bay barteen filimkooda o dhan baan idiin sheegaya horta qish baan maalin tusinaya nimankan inaan fashiliyaan rabaa ucud iyo wadaniga dhegeysta waxay sameeyeen ucud iyo wadani cabdikariin axmed mooge ayaa waxaa lagu yiri wadani iska soo sharax faysal iyo waxa ku heshiiyey cirro waxaana la yidhi cabdikariin axmed moogow codka ugu badan baad hargeysa helaysaa meel walba ka ololeyso kadibna marka aad codka badan kusoo baxdo waxaan odhan doonaa ma garanaysaay horta xisbiga wadani waxay qaadanayeen mar walba guddoomiyaha baarlamaanka ayay qaadanayeen guddoomiyaha baarlamaanka xisbiga wadani ayuu meel usii yaalay laakiin haddana waxay yidhaahdeen waxa weeye cabdikariin cod badan kusoo baxsaan ku nidhaahno codka shacbiyadda dadka ma garanaysa hargeysa ayaa ninkan lagu siiyey booska cabdiraxmaan cirro markaa wuxuu rabay inuu cabdikariin booska hargeysa maayarka ka dhigo burcana nimankii u ballan qaaday uu idhaahdo xisbiga ucid baan siiyey cabdiraxmaan cirro burco wuxuu ku wareejiyey xisbiga ucid faysalna wuxuu keenay nin garxadse marka habar jeclo horta filim baa loola ciyaaray filim weyn baa loola ciyaaray siyaasaddii labadan nina dhukureeyey aad bay siyaasadda u barteen markaa iminka cabdiraxmaan cirro wuxuu taaganyay dee anugu nimankan xisbiga ucid baa maayarka iska leh anugu ma garanaysaay kii hargeysa lay siiyey ka hargeysa in la siiyo oo burcana saa ku qaati rabe odaygu marka waxa weeye filim buu horta sameeyey habar jeclo markaa way yaaban yihiin siyaasaddan ma taqaanaan adeerayaal siyaasaddan ma taqaanaan siyaasaddan finland baa laga ciyaaraa finland ayaa laga ciyaaraa cabdikariin axmed moogena waxaa la keenay hargeysa oo la yidhi halkaa joog nimankii burce dee la xisbiga wadani imika wuxuu ku wareejiyey oo maayar ku-xigeenkiiba wuxuu siiyey xisbiga sidaanay habar jeclo u odhan xisbigu ilaa wadani imika haddii meesha ay helaan habar jeclo waxay leeyihin ballankaa nala gashay cabdiraxmaan cirro keen cabdiraxmaan cirro wuxuu leeyahy waan wareejiyey wuu sii iibiyeyba gacantii labaad bay maraysa gacantii labaad markaa faysal baa meesha lagu wareejiyey iimaanku yaanu idinka raacin walaalayaal islaamihii baa soo qaylinaya hindaa qaylinaysa shalayta wasiirahayd maxay qabatay maxay ummadda u qabatay hindaay ummadda intaad wixii xoolaheedii qaadatay ayaad maantana soo fadhiisantaa medios aad leedahay waxa weeye xisbiga waa in laga tashadaa caynkaas reer soomaaliya iyo rusiga horta qoladaa burca iyo hargeysan ka hadlay ikaadiya u kala ka qaadaya ikaadiya arrimaha waan gelaynaa ana horta dee nin loo kala soomaaliyeed baan ahay oday soomaaliyeed baan ahay arrimaha soomaaliyaan ka hadlaa arrimaha leenleenti waxaa kama hadla laakiin iyarkaadiya waxay xoogaan ku socday dad baa soo wacaya ikaadiya halo sheergarey barnaamij sheergarey halo ha maya waa shalayto weyan waa shalayto life la soo geliy weyan maaha life waa fiicanay dee life kuma jira imika shir baa ku jira kugu soceli astaqfirullah maya waxa wey kuwaaleysa waxay ku leedahay life miyaa tay ku leedahay haddaan maxamne waad arkaysa inaan life nay waxa weeye markaas hay soo wicin qofowna hay soo wicin markaa waxa weeye maayarkii wadaniga ku guuleystay markaa wadani khiyaanad u sameeyey waxa weeye inuu maayarka hargeysa ilaa anagu maayarka hargeysaan qaadanay xisbiga cudna kii burcay qaateen burcana nin garxajismaa laga dhigay meeshii burcana nin garxajisa meeshii laga dhigay khiyaamana maha waa siyaasad weyn idinkuba shan nin wasiiroo dhicin baa lahaydeen siireeya madaxweyne idin ahaa anagu maanu qeylin jirin maanu cadhoon jirin t v maanu soo fariisan jirin reeraha waa idin waxaad tihin dadka dawladda ku nool baa tihin risq kale ma cuntaan war ordo shaqaysta habar jeclay ordoo shaqaysta oo magaalada gala ha sugina risq maayarnimo iyo ma garanaysaa baarlamaan wax ka cuntaanay ordo shaqaysta adeer annagu waxa weeye waan xoogsanaynay muruqmaal baanu hayn dekadaan ku xamaalaynay meelahaasaan u shaqo tagaynay waxa weeye waktigaybay gaadhay marka waxaan anigu leeyahay labadan nina dhukuuranay siyaasadii way barteen horena way u yaqaaneen iyagaa isku shushubtay oo ma garanaysaay maayarka burco dayn buu ku maqnaabay dayn buu xisbiga ucid buu dayn lagu siiyey maayarkii maayar ku-xigeenkiiba xisbiga ucid baa iska qaatay soo madkan
ceeri gaabana wadani baa la siiyey marka waxa weeye horta ninkii muuse biixi dadka halkan ka taageeri jiro wallahi muuse waa dhacay muuse isagoo maanta madaxweynaha ayaa maayiradii dalka oo dhan laga guuleystay kii berbera kii hargeysa burco ceerga maxay daharay maxaa sugaysaa war kuraasta baneeyo xishooda oo kuraasta baneeyo labadan nin dhukurina midda fuulaya cirra ama fuulaya oo badan ama Faysal baa fuulaya marka labadan nin weydii heshiiyeen oo magaraansa habar jeclaana waxa weeye daacaw dhan qeylisaan iyo hadii kala xisbiga wadaniga ku jirtaan hogaamiye la disiyay adeerayaal oo siyaasadda ha iska saarina boqolkiina waa kii hadlay boqolkiina muxuu yiri boqol buur madaxweyne wuxuu hadii la naqadiyo hadii wax la siiyo anagu xisbiga wadani baan nahay buuri oo anagu mucaaradka iyo isbahaysiga ayaan nahay buuri marka waxa weeye de hadii maanta maayirkii la dhaafiyay oo nimanka magaalada la degay qaateen berbera cid baa la siinaya war meesha wala ka qaybsan bal eeg ceer gaaba wadani baa qaatay berbera cid baa la siinaya burcana cid baa qaatay hargeysa magarasa wadani baa qaatay walidii shixay magarat cabdikariim axmed moogan waxa la yiri cod waaliye ku soo bax codkii wuxuu ku soo baxay reeraha oo dhan ku soo baxay lama oran karo cabdikariim axmed moogan cid gaar soo saaray ama garax baa soo saaray lama oran karo ma fahanteen koodbuur iyo waa meelihii muuse bixi dadkiisii ayaa codka siiyey ninkaas ma fahanteen degmada 16 jun iyo koodbuur iyo axmed dhagax nimankaas siiyey beeshii arabna meeshan waxa weeye waa ku dhaceen yani tartankan arab way dhaceen laakiin arab waxa weeye anaguba marban saaw dhacnay marka nimanka arabna waxa weeye hal xidhaan bay yeesheen doorkan iyagu waxay taageen xisbiga wadani baan riday inuu arabku ma waayay war arabo goorma horta siyaasadda baranaysan arabo horta inuu siyaasadda abtiyaal kuma wanaagsanid siyaasadda iga shargaray barnaamij shargaray marka Soomaaliland ka hadlaysiyo wax dad ma daawanaya barnaamij ma jiro waxan iyo Soomaaliland wax laga hadlama waraar shargaray barnaamij shargaray waxa maqaaxidu ma shidmaysa marka Soomaaliland waxa laga hadlayo waa dadku waxa weeye waxan ma jecla waa beejka dadka igu jiraaba waa dad Soomaalinimada ay igu bartay oo yiri Suudaan Soomaaliyeed baa tahay weeyaan marka raalaha waa ka baxay qodobkooda oo ka baxay la tiri waxa saayistaan ka baxay marka waxa weeye beeshi arab tartanka waa laga badiyay waxa weeye magaranayay waxay iyagu taageen xisbiga wadani ma riday hay weyn oo magaranayay nin cali la raaco magaranayay cali curri la raahdo wuxuu soo qorayay xisbiga wadani ma riday war xisbiga wadani kuma ridine adiga baa qorsha adiga magaranayay xildhibaanada kulmiye ka iibiyay adiga waa isbarbar yaacaya idinkii baan muqaalafo lahayn xisbiga riday ma jiro xisbi waxa ma rido xisbigu ma commission ba ma ri raacba marka xisbiga wadani bisoo cid baa xiriir kara xisbiga wax ma ridi kara arabo aqli yeesha siyaasadda ma taqaanaan siyaasadda iskaga baxay idinku ma fahanteen habar jaco siyaasadda taqaanay baa saas ku dhacday soo waa idinku siyaasadda waxba ka aqoon marka waxa weeye diinta ma haysan arab diinta ay aad u yaqaanaan oo culimo weeyaan xagga diinta ee lagu wareejiyo arab weeyaan usiirka diinta oo qaftay soo socdaa leedihiin marka waxa weeye qodobka waxaan ku darayaa aan leeyahay arab hal dhawaanbe ana u baa arabo magaalada Baris ku arkay shaad waxa weeye wajiga way siin waayeen war heedhaha daanu idin ridini arabo anigu miyaan riday waa maya maxay wax xanaaqsantiin ma wallahi billahi tallahi ni waxa weeye xisbiga dhamaan taageernay ayaa san lagu sameeyay xogayaha khadar baysnan xogayaha khadar war khadar wan xogayaha xisbiga ay muxuu ridi ma commission ba ma in raacba haday wax cid ridayso de waxa weeye in raacba riday dadka iyo kulmiye riday kulmiye codkiinu raadsada codkiini laab salax ba ku soo saarteen laab salax ba xildhibaan ku codkiini ma fahanteen marka codkiini meesha u ku rideen u doonta sanduuq Soomaaliya lahay yaa codaysan laab salax ba codaysan codkiini laab salax ba qaatay marka star worka hayno bilaabine xisbiga wadani gudoomiyaha la siinaya inuu jirdaaya meesha jooga ma fahanteen xisbiga wadanina waa soo baxaya sanadkana isaga ku fariisanaya duu ku fariisan waa inuu cid ku fariisanaysa adoo horta labada nin dhukuran baa ayaa meesha ku fariisanaya somad garan marka cod laab salax siiseen annaga naga dhex raadinayay iska aamus oo xishoodan iyo ma fiicna saas wala barxad baan siina cod barxad dad siiseen ha sheegina iska aamus barxad cud walba siiseen warda degmada waaxid maxamuud heebe iyo maxamed mooyim socod buu ka helay barxad 13 kun cod buu ka helay ما فهمت
degmooyinka kale wuxuu ka helay wad garanaysan 26 kuna helay imsa soo haray 7 kun soo haray marka waxa weeye hayna wareerin arabow codkiini laab saalax baabar ku soo saarteen baro xasiiseen barxad waa run in mooye waxba siiseen cod baa siiseen marka codkiini waa federaal buu noqday federalism baa noqoteen doorkan siyaasadda anaga hogaaminayna de xisbiga wadanina kulli gudoomiyaha waalid ku wareejinaya saan maqlay marka waxa weeye janna ka bood ha noqonine